jirka ma yeelatay diinka oo kale ama abeesada oo kale qallayl jirkaagu ma yahay daraay dadka haaraha yeesha maasha allah maas laga daba dhacay oo waad badsanaysaa intaa doontaad ka dhiganaysaa wiigii 2 saliidihii waan u dhamaynay hadda in yaroo biyo aan ku daraynaa walba waa inaad ku darto saliidihii oo dhan waan ku darnay wax walba waa u dhan yihiin maasha allah maask aan hore loo aragon loo maqalba halkan ka soo baxay waa xaweeyaan based on research maaha kaftan iyo meelahan soo wax laga keenay waa caafimaad jirkaagu haddii uu qalalay oo sida diinka oo kale aad noqotay dadka wajigu qalalo ama jir qalalan oo dhulkaasi aad u darayga yihiin intanaad u baahan tahay waa mask sida u kala siibanaya saasoo jirkaaguna hadhow u qoyaya sida imika tahay soo ma arkaysid maasha allah sidaasoo hadhow waa waxa weeyaan waa naacim waa silk waxa weeyaan xariir marka dusha iska marinayso xariirtaasoo hoosta ka noqonaya xataa haddaad doonto intaad jilbahaaga marisaad bac ku xidhaysaayo bacaha yaryar ee aynu raashinka lagu daboolo ayaad ku daboolaysaa saliidda iyo waxaasi oo dhan omega 3ga waxay galayaan gudaha adiga iga og wajigaagu sidaad jileeca ugu rabto bismillaahi raxmaani raxiim allahumma salli calaa sayidina mawlana maxamed ilaahay intii naga dhimatay ha u naxariisto inagana inooga daba naxariisto dambi dhaaf iyo maqfuuran ilaahay mar walba weydiisanaynaa maasha allah maanta waxaan u baahannahay chia seedkaas maasha allah alaabo badan maaha laakiin waa wax ilaahay dawo jirkeena u ah ayaan ka samaysanaynaa waxa kaloon u baahannahay pure seaweedkaas maasha allah anigu isagoo bado ama hayo isagoo oo baakada ku jiraan hayaa waxaa kaloo aynu u baahannahay qofkii haysta omega fish oilkaas iyada laftirkeedu faa'iido u leeyahay jirkaana idinka sheekaynaya maanta wax aan badnayn marka hadda kan maasha allah waa kan waa anigu ma hayo isagoo budo ah marka kan ayaan kaabsalkan ka saarayaa waa pure seaweed waan idin sheegay waxa weeyaan milixda badda waxay naga dhiman marka aynu yeelno bahalkan la yiraahdo thyroidka waxay naga dhiman weeyaan caafimaadka omega 3 haddaad aragto omega 3ga kow ka ah kana ka ah waxyaabaha jirka xagga hoose hadday ka dhiman yihiin xagga sarena hadday ka dhiman yihiin intaba waa isku mid ma maqashay weligaa yaalaha qofka jirkiisu waa dry ma maqashay biyo cab maaha biyaha waxa ka dhiman qofka waxa weeyaan omega 3ga bahasha la yiraahdo omega 3 fish oilkaas iyo salmanka iyaba laga helaa pure seaweedkan iyo haddii jirkaagu gaboobay oo dildilaac yeeshay adoo yar haddii aad jirkaagu qallalan yahay qallayl xooga yeelatay kan ka samayso maasha allah pure sea waa kaas pure seaweedkii waa anigaas waa kaas maasha allah maasha allah saliidihii waan u dhamaynay hadda in yaroo biyo aan ku daraynaa mar walba xataa haddaad chia seed qaadato waa inaad biyo badan ku darsato waayo chia seed waxay u baahan tahay biyo badan in lagu sameeyo chia seed meeshaad ku aragto biyo mar walba waa inaad ku darto saliidihii oo dhan waan ku darnay wax walba waa u dhan yihiin maasha allah maask aan hore loo aragon loo maqalba halkan ka soo baxay waa xaweeyaan based on research maaha kaftan iyo meelahan soo wax laga keenay waa caafimaad jirkaagu haddii uu qalalay oo sida diinka oo kale aad noqotay dadka wajigu qalalo ama jir qalalan oo dhulkaasi aad u darayga yihiin intanaad u baahan tahay waa mask sida u kala siibanaya saasoo jirkaaguna hadhow u qoyaya sida imika tahay soo ma arkaysid maasha allah sidaasoo hadhow waa waxa weeyaan waa naacim waa silk waxa weeyaan xariir marka dusha iska marinayso xariirtaasoo hoosta ka noqonaya xataa haddaad doonto intaad jilbahaaga marisaad bac ku xidhaysaayo bacaha yaryar ee aynu
raashinka lagu daboolo ayaad ku dabooleysaa saliidda iyo waxaasi oo dhan omega 3ga waxay galayaan gudaha adiga iga og wajigaagu sidaad jileeca ugu rabto